Iskuwadra Dala Sabito oo ka mid ah lejimadii hore ee dalkeena Soomaaliya ee soo maray maalin walba Sabti markaasi kulan ciyaareed ku sameeyay iyo soo dhoweyn qeybaha kala duwan ee magaalada Muqdisho ayaa markaasi hambalyo iyo soo dhoweyn markaasi ay u sameeyeen kooxda dekedaha oo ka mid ah kooxda kubadda cagta dalkeena Soomaaliya dhowaan markaasi ka qayb gashay tartanka CAF Champions League ee usoo gudubtay wareegga xiga ee tartanka sidoo kalena ka mid ah kooxaha sanadkan ee ku guuleystay. Ciyaartoydan ayaa markaasi soo dhoweynta waxaa u sameyn doona ciyaartoydii hore ee dalkeena Soomaaliya kaas oo markaasi lagu soo dhoweyn doono garoonka General Daud ee ku yaala degmada Boondere gaar ahaan xaafadda Sinai waxaana markaasi soo dhoweynta kasoo qayb gali doona dhammaan ciyaartoydii hore iyo sidoo kale madax hore oo markaasi kala duwan iyo qeybaha kala duwan ee xiriirada dalka. Galabta ayaa kulan markaas saaxiibtinimo ay la ciyaari doonaan ciyaartoydii hore iyo sidoo kale ciyaartoyda kooxda dekedaha. Kulankan galabta ayaa waxa uu dhici doonaa 9:00 galabnimo garoonka General Daud ayaana lagu ciyaari doonaa. Waxaana soo qaban qaabiyey madaxa Iskuwadra Dala Sabito Xaaji Aadan Cabdulle oo markaasi ka mid ah ciyaartoyda lafdhabarta u ahaa dalkeena Soomaaliya. Xilliyada nabadda oo maanta sharfaysa soona dhoweyneysa kooxda horyaalka dalkeena difaacaneysa ee dekeda iyo sidoo kale tartankan dhowaan galka ay ka qayb gashay una soo baxday. Waxaan ku dhiirinaynaa inay markaasi kooxda ay tahay in horumar kale ay sii gaarto si aan dhiirigelin weyn aan ugu sameyno iyagoona la doonayay in muddo ka badan 40 sano ah ay markaasi noqon doonto naadiga Afrika. Waxaan doonaynaa inaan ku guuleysano ayuu yiri si aan u taageerno ciyaartoydeena ee matalaya dalkeena Soomaaliya oo markaa taariikh weyn kasoo sameeya tartamada qaaradda bariga Afrika. Marka laga qayb galayo kooxo dhowr ayaa tartankan hore ugu qayb galay iyagoo aan usoo gudbin ayaana hadda 40 sano kadib waxaa soo gudubtay kooxda kubadda cagta ee dekedaha. Waxaana u rajeyneynaa mustaqbal iyo sidoo kale guul iftiimeysa ayuu yiri. Waxaana galabta kulankan uu yahay kulan lagu weyneynayo guushii ay gaareen xil ciyaareedkan kooxda dekeda maahan ayuu yiri kooxda keliya ee dekeda. Waxaan u sameyn doonaa koox walbo ayaan dhiirigelin doonaa ee dalkeena Soomaaliya hadday ahaayeen ciyaartoyda yaryar iyo sidoo kale ciyaartoyda waaweyn ee hadda ku jira iyo ciyaartoydii hore ee barsimaadkii ay soo ciyaarayay. Galabta ayaa mas'uuliyiin fara badan ee imaan doona ay ugu horeeyo kooxda kubadda cagta dekeda iyo mas'uuliyiin kale kooxaha iyo sidoo kale mas'uuliyiinta xiriirka kubadda cagta Soomaaliya iyo ciyaartoydii hore iyo Iskuwadra Dala Sabito dhammaantood ayaa markaasi wada ciyaari doona kulankan lagu dhiirigelinayo kooxaha